kulanku iyo sukaan walgorodka odayaasha ka dhaqan degmada Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiil ciidamada booliska degmada Afgoy iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba usaay kulanku hadalay sidii ammaanka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose lanku wada shaqeyn lahaayay walibana kulanka inta badan usaay ku saacado badan socday waan lanku hadalaysay odayaasha door muhiim ah oo qaado lahaayeen sugidda ammaanka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose walibana on koreyntii meel ku hadalay qaar kumid ah odayaalkii u qayb galay kulanka isla marhaantaas ee ku hadalay xaaladda ammaan ee deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ballankii sidiisa ungweedna dawladda koonfur galbeedna meelka mahadnaqaane howlo sidii deganaantii oo maardi dadka taliyaasha la tartiibanayn ka daraaso yeena lan aragaana sidii weelasana ciidan ka dhawaayana wal siyaasi ee u madaxweynaha meeray hafiis korkataagan yaka jirna mahbus korkataagan ka jirna habso korkufurna ka jirna markum basar yeena sadad yahay waa la shaqeeyna oo saaxiibkeeni waa doona la shaqeeyo horumariye hadoona la shaqeeyo iyo hadoona la shaqeynay waa la shaqeynay la shaqeynaa in la shaqeeyo tawfiiq la waafajiyo baad al-asr lagu jiraa waxna waxa roo in la fudfud wax laga sheego ma jiraan waxa dhameeyay gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo taliyaha booliska annaguna odayaasha hadaan nahay wada shaqeyn wanaagsan Soomaaliya kana xaw nafta way saas oo kale gabagabadii waliba meel ku hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose Omar Maxamuud iyo taliyaha saldhigga degmada Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose mudane dhamme Cabdulqaadir Mursal iyo si wada jir ku hadleen kulanku u jeediyay galnay ina odayaashiina isku kiyeero wada shaqeyn dhawaan dhaxmarto oo ay shaqadayda sameeyo balanteena ay ahayd marka waa waqtigii aan oo masaamixi waayay howlgal iyo mashquul awgeedi maanta ilaahay fursaddiina siiyay qadada maanta idin sameeyay marka waxaan rabaa in wada shaqeyn tii aad inala shaqeynayseen habeenii maalina garab taagneedeen inaad si laba laabtaan amniga aan ka wada shaqeyno sida buuxda liana odayaasha la'aantoodii ay sheegeen cid yani bilaadan aad iyo aad farxad weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo hay'adaha amniga taliyada saldhigga degmada Afgoy iyo odayaasha dhaqanka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ee bulshada Shabeellaha Hoose iyo gaar ahaan degmada Afgoyba mas'uulka ka ahay dhaqanka u ahay dhibaatooyin kasta oo dhaca ka shaqeeyay 22 sano la soo dhaafana nabadgelyo si dadkan u gaar lahaayeen oo dawladnimo u helayeen ka shaqeynayay in maanta isku xirka taliyaha saldhigga degmada Afgoy iyo wada shaqeynta idinka muuqatay wayba kulanku sahay koonta badan ku hadalay sidii door muhiim ah oo qaad lahayn odayaalka deegaanka sugowka ammaanka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose waa inuu sahay koonta badan iska afgarantiisa wada jir lan wada shaqeey ammaanka deegaanada gobolkaasi Faisal Dayo, KJS TV, Baydhabo.